maxaan ka ognahay ama kala soconnaa qoraal cilmiyeedyadii laga qoray taariikhda magaalada muqdisho muqdisho sideedaba horta sidee ku magaalooday amaba ay magaalo ku noqotay iyo macnaha magaca muqdisho xaggee salka ku haya xaggee ka yimid saddexdaas arrimood ayaan barnaamijkeenan qaybtiisa koowaad ku falanqayn doonaa soo dhowaada kuraastiinana soo dhowaysta namariya aan ku bilowno barnaamijkeenan qaybtiisa koowaad magacyada qoraal cilmiyeedyada ugu muhiimsan ee aan u kaashanay ka hadalka taariikhda muqdisho kuwaasoo kale ah labadan soo socda qoraal cilmiyeed koowaad magaciisa waa medieval mogadisho oo haddii la af soomaaliyeeyo noqonaya ama ku noqonaysa muqdishadii waayadii dhexe ereyga medieval macnihiisu waa waayadii dhexe si kale haddii loo fasiro waa taariikhda yurubta galbeed ee ku beegan sannadihii 400 ilaa 1500 qoraal cilmiyeedkan waxaa qoray aqoonyahan magaciisa la oran jiray Neville Chittick sanadku markuu ahaa 1982 qoraal cilmiyeedka labaadna magaciisu waa The Origins and Development of Mogadishu AD 1000 to 1850 oo isagana haddaan af soomaaliyeeno noqonaya asalkii iyo hanaqaadkii muqdisho sanadihii u dhexeeyey 1000 ilaa iyo 1850 qoraal cilmiyeedkan ama maqaal cilmiyeedkan waxaa qoray aqoonyahan magaciisa la yiraahdo Axmed Ducaale Jaamac haddaba yay kala ahaayeen labadaas aqoonyahan ee magacyadooda aan ku soo sheegnay Neville Chittick iyo Axmed Ducaale Jaamac aan aqoonyahanadaas si kooban uga hadalno annagoo u kala horreysiinayna siday u kala da'weyn yihiin Neville Chittick wuxuu ahaa arkeologiste Ingiriis ah oo ku takhasusay taariikhda dhaqannada Afrika waqooyigeeda bari iyo Swahili Coast halkii loo yaqaanay inkastoo Neville Chittick lagu dhaliiri jiray inuu aragtiyooyinkiisa ku salayn jiray fikradihii gumeystayaashii reer Yurub ama waxa loo yaqaano aragtida Eurocentriga haddana waxaa loo aqoonsan yahay inuu door muhiim ah ku lahaa daahfurka iyo fahanka taariikhda geeska Afrika Dr. Axmed Ducaale Jaamac waa Soomaaligii ugu horreeyey oo shahaadada PhD-ga ku qaata culumta archaeologiga ama cilmiga baara taariikhdii hore ee bani aadanka sanadkii 1991kii ayuu shahaadadaas ka qaatay jaamacadda Uppsala ee ku taala waddanka Sweden Dr. Axmed Ducaale Jaamac takhasuskiisa ama cilmi baaristiisu waxay ku qotantaa asalka iyo hanaqaadka gobolladii waayadii dhexe ka jiray geeska Afrika iyo weliba cilmi baarista magaaloobidda xeebta Banaadir Dr. Axmed Ducaale Jaamac wuxuu la soo shaqeeyey aqoon-yahano heer caalami ah oo ay ka mid yihiin Neville Chittick aan iminka ka soo hadalnay iyo sidoo kale Stephen Brand Paul Sinclair iyo Margarita Mussi oo dhammaantood ka soo wada qayb qaatay cilmi baarisidii laga fuliyey Soomaaliya intii uusan dhicin burburkii 1991kii maadaama ay xamar cadday barnaamijkan atariisho iyo atooraba ka tahay Chittick iyo Jaamac raalli hanaga ahaadaan ama raalli bay naga yara noqonayaan oo ayaga qoraal cilmiyeedyadooda waxay u baahan yihiin ama istaahilaan muuqaalo gaar ah oo lagu saaro miisaanka reviewga ama falanqaynta waxa loo yaqaano waa hagaag haddana aan u soo gudubno su-aasheenii labaad oo ahayd muqdisho habkee ku magaalooday su-aashan waxaan uga jawaabi karnaa annagoo laba dhinacba ka iftiiminayna waa marka koowaade muhiimadda juqraafi ahaaneed annagoo dul istaagayna iyo marka labaad qaab dhismeedka magaalada muqdisho ama muqdishadii hore say u dhisnayd iyo say ahayd sida caamka ah ee guud ahaan la wada ogsoon yahay badanaa deegaanku wuxuu ku aasaasmaa dhul juqraafi ahaan istiraatiiji ah kaasoo sahla dhaqan dhaqaalaha dadyowga halkaas deegaankooda u doorta juqraafi ahaan hanaqaadkii muqdisho waxaa saldhig u ahaa laba sababood oo dhanka beriga iyo dhanka badda ka kala xigay dhanka beriga waxaa u dhowaa oo muqdisho agteeda ka leexda webi Shabeelle taasoo macnaheedu yahay inuu jiro dhulbeereed aan meel fog jirin kaasoo ka haqabtiri kara quudka lagama maarmaanka ah ee magaaladu u baahan tahay sidoo kale tuulooyinka ku yaala hareeraha webiyada Jubba iyo Shabeelle waxaa la isugu keeni jiray dalaga dheeraadka ah ee ka soo hara ama ka bata baahida beeraleyda iyo qoysaskooda kadibna waxaa la isugu soo ururin jiray degmooyin ay ka mid yihiin Awdeegle Jannaale iyo Afgooye oo ahaa xarumo manafacaadka beeraha looga sii gudbiyey Muqdisho iyo caalamka kaleba
logistikada noocaas ah ama maamulka socodka badeecooyinka ee habkaas u nidaamsan ayuu ku salaysnaa xiriirka hufan ee u dhexeeyey dhulka xeebaha ku yaala iyo kan gudaha sii jira ama baadiyaha loo yaqaano. isku tiirsanaanta dhaqaale ee ka dhexaysa xeebleyda iyo beeraleyda waxaa soo saddexeeyey xoolo dhaqatada ama raacatada oo iyaguna badeecooyinkooda ay ka mid yihiin xoolaha nool, subaga, caanaha, hargaha iyo saamaha magaalada u soo iibgeyn jiray. xilliyada abaaruhu jiraan, xoolo dhaqatadu waxay isugu imaan jireen agagaarka webiyada, halkaasoo ay beeraleyda badeecooyinkooda isku weydaarsan jireen. qaab nololeedka ku salaysan dhaqan dhaqaalaha abaar iyo aaranba isku dheelitiran wuxuu suuro gelinayaa inay magaaladu hesho waxay beeraleyda iyo xoolo dhaqatadaba uga baahan tahay, taasoo iyadana aas-aas u ah inay magaaladu kubacdo. dhanka kale, beeraleyda iyo xoolo dhaqataduna waxay magaalada kala laaban jireen ama ka iibsan jireen dhar, shaah, sonkor iyo agabyo kale oo nolol maalmeedkooda u fududeeya ama ayba uga baahan yihiin. dhanka badda marka laga fiiriyana, manafacaadka badda ka sokow sida kalluunka iyo wixii la midka ah, muqdisho, marka ilaa iyo baraawe waxaa ku yaala xeeb istaraatiijiyadeeda lagu macnayn karo qaab dhismeedka shacaabka xeebtaas ku dherarsan. shacaabka ama dhadhaabaha ishaysta oo ku dhow dusha biyaha, kuwaasoo afka qalaad lagu yidhaahdo coral reef, waa kuwo si xiriir ah ugu qabsoon xeebta banaadir. laakiin waxaa jira goobo uusan shacaabkaasi isku wada dheganayn oo waxaa jira meelo uu ka bambanaan yahay. meelahaas uu haddaba uu shacaabku ka bambanaan yahay ayaa waxay aad ugu habboon yihiin dekedaha macmalka ah, maadaama ay tahay meel ay doomuhu si fudud ugu soo xiran karaan, islamarkaasna ay dugsi iyo duggaalba uga helaan mawjadaha badda. magaalooyin ay ka mid yihiin Lamu iyo Mombasa ayaa iyaguna qaabkan oo kale waagoodii hore ku yeeshay dekedo macmal ah. labadaas arrimood oo magaalada juqraafi ahaanta goob istaraatiiji ah ku noqotay waxay dhaliyeen inay magaaladu noqoto xarun ganacsi oo lagu kala iibsado badeecooyinka kala yimaada baadiyaha iyo dhulbeereedka Soomaaliya, Ethiopia, Swahili Coast, Hindiya, Bershiya iyo dhulalka Carbeed, taasoo la oran karo suuq ganacsi oo caalami ah ayay tartiib waagaas Muqdisho ama Xamar u noqotay. qodobkeena labaad aan uga jawaabayno su-aasheenii ahayd Muqdisho sidee ku magaaloodeena wuxuu noqonayaa qaab dhismeedka Muqdishadii waayadii hore. magaalo ahaan Muqdisho waxaa waayadii dhexe aasaas u ahaa laba deegaan ama laba degmo oo kala ah Xamarweyne iyo Shangaani. labadaas degmo waxaa weynaa Xamarweyne oo ka dul dhisnayd dhadhaab ama dhul dhagax ah dushiisa, taasoo u ahayd aag difaac oo dabiici ah, islamarkaasna taagga ay saaran tahay awgiisna dhinac walba dhul fog ayaa uga muuqday. dhanka kale, Shangaani waxay ku taallay dhul bacaad ah oo dhanka koonfureed dekedda ka xiga. waagaas dhulka u dhexeeyey Xamarweyne iyo Shangaani waxaa ku yaalay suuq ay ka wada adeegtaan dadyoogii ku dhaqnaa labada degmo, islamarkaasna waxay u ahayd goob ay ku kulmaan oo ay ku kala warqaataan. sida diiwaanka taariikhaha laga soo xigan karo, tusaale ahaan dalmareen Faransiis ahaa oo la oran jiray Julain ayaa wuxuu qoray in sanadihii 1840aadkii ay Muqdisho ku noolaayeen qiyaastii dad gaaraya 5,000 oo qofood, kuwaasoo 4/3 meel ama intooda badan ay deganaayeen dhinaca Xamarweyne. nidaamka ay magaaladu u naqshadaysan tahay iyo qaab dhismeedka guryaheeduba waxay ka turjumaysay hodantinimada iyo muhiimadda istaraatiiji ahaaneed oo ay magaaladu lahayd. saraha Xamarweyne iyo Shangaani waxaa dhisidooda loo adeegsaday dhagaxa murjaanka oo afka qalaad lagu yiraahdo coral rack iyo agab ama material kale oo deegaanka laga helo. halkaas waxaa laga garan karaa halabuurka dadkii deganaa ama dadkii guryahaas dhisay oo la yimid fikrad ah inay adeegsadaan agab dhisme oo deegaankooda laga helo oo aan meelo kale laga keenin macnaha. magaaladu waxay lahayd wadooyin yaryar oo aan ballaarnayn iyo guryo dhowr dabaq ka kooban sida magaalooyinkii kale ee ku dherarsanaa xeebaha bariga Afrika ama Swahili Coast. dhismayaashaas in lagu nool yahay kasokow waxaa sidoo kale ku yaalay meherado ganacsi. waxaa xusid mudan in magaaladu boqolaalkii sano ee ay jirtay ay wax badan sii fiday oo ballaaratay,
balse xamarweyne mar waliba naqshadeeda aas-aaska u ahayd bay ku taagnayd inkastoo qalcadihii beri ku hareysnaan jiray ay badankoodu dumeen. Shangani ayaa iyadana qaab dhismeedkeedu isbeddel ku yimid xilligii Talyaaniga inkastoo saraheeda qaarkood ay weli sidoodii asalka ahayd ku badbaadeen. Muuqaalka magaalada iyo nidaamka ay u naqshadaysnaydba waxay sifo muuqda u ahaayeen magaalo kobcaysa oo bulsho xadaarad lehna ay ku nooshahay. Markaana aan u soo dhaadhacno su-aasheenna ugu dambeysay oo oranaysay maxaa laga ogyahay macnaha magaca Muqdisho ama asalka magaca Muqdisho. Siyaabo kala duwan ayaa looga taariikheeyaa asalka ama halka uu ka soo jeedo magaca Muqdisho oo qof walbaba sibuu u yaqaanaa. Taasoo dabcan ku timid saamayntii taariikheed ee ay ku lahaayeen dhaqanadii kala duwanaa ee halkaas ku kulmay. Ka waran haddii adigoo shirweyne caalami ah jooga ama waqti la qaadanaya asxaabtaada aan Soomaalida ahayn lagu weydiiyo su'aal oranaysa what is the etymology of Mogadishu name ama waa maxay macnaha ama asalka magaca Muqdisho. Jawaabtaada cilmi ahaaneed maxay noqon kartaa? Jawaabta tooska ah ee su'aashan waa inaan xaqiiq cad laga haynin halka uu ka soo jeedo magaca Muqdisho. Laakiin haddii aad rabtid inaad si cilmi ahaan ah u xariiftantid asalka Muqdisho waxaad tusaale ahaan ku sababeyn kartaa 4 qodob oo ay taariikhyahanadu badanaa adeegsadaan. 1. Taariikhyahanada qaarkood waxay sheegaan in magaca Muqdisho uu ka soo jeedo ereyga maqcad ishaah oo afbeershaan ah kaasoo tilmaamaya inay Iiraaniyiintu saamayn taariikh hore ah ku lahaayeen magaalada Muqdisho. 2. Cilmi afeed ahaan magaca Muqdisho waxaa lala xiriirin jiray muqaddas ama muqaddas oo af Carabi ah afka qalaadna ku noqonaysa holy. 3. Dhanka kale marka laga fiiriyo dadka deegaanku waxay magaaladooda u yaqaaneen xamar oo tilmaan u ah midabka cas ama guduud xigeenka ah oo bunni ama midab kafee ahna uu heliyo. Si kastaba magaca xamar waxaa lala xiriiriyaa midabka ciidda ama carrada magaalada ama midabka ay dhismayaashu lahaayeen ama lahaan jireen. 4. Waxaa kaloo xusid mudan in magaca xamar uu qayb ka ahaa magacyada xaafado ama degmooyin Muqdisho ilaa iyo haddaba ku yaala sida Xamarweyne iyo Xamar Jajab. Tanina waxay caddayn u noqon kartaa inay dadka deegaanku markii hore magaca xamar adeegsan jireen halka magaca Muqdishona uu markii dambe aad u soo shaac baxay. Wagaag saaxiibayaal qaybteena koowaad ee barnaamijkan ee qoraal cilmiyeedyadii laga qoray taariikhda Muqdisho maanta halkaas ha noo joogo. Qaybta soo socota ee labaad waxaan uga hadli doonaa sidoo kale maamulkii ama nidaamkii ka jiray Muqdishadii waayadii dhexe. Sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa saamayn noocee ah ay Muqdisho ama xamar dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba ay sideedaba ay lahayd. Iyo sidoo kale waxaan mid iyo laba tusaale ahaan ah uga soo qaadan doonaa qodaaladii archaeology ee Muqdisho iyo agaarkeeda laga fuliyey iyo wixii laga helay. Mahadsanidin dhammaantiin soo nabad ahaada nabaday.